kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha Nabad TV meel kasta oo aad adduunka ka joogtaan waa mar kale iyo anigoo ah Asmar Degan maanta waxaan idin sidaa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac daray hodannimada afka hooyo. barnaamijkan waxaa maanta ila daadihin doona wariye Cali Xaraare oo ah qoraa ka faalooda af Soomaaliga waxna ka qora waxna ka bara dadka. Cali ku soo dhawo barnaamijka. aad baad mahadsantahay adiga TV-gaaga nabad dhawaah هذا كان mahad celinaya ogolaanshaha adigoo ogolaatay maanta inaan barnaamijkan isla daadiino Cali waxaan u baahanahay afka hooyo oo si lumaya oo moodid in waayahan dambe luqadii kale sida loogu lifaaqay ka baxay xadkii inaad wax iiga sheegtid bal afkeenu afafka kale muxuu kaga duwan yahay horta afkeenu waa af sidaad sheegtay hodana aad iyo aad afafkana qaybo uu kaga duwan yahay baa jirta afafka caalamku way dhashaan markaasay koraan markaasay tis qaadaan markaasay bulshadii ay isticmaashaan way dhex galaan marka afkaas waa af dhalanaya eriic marka la dhalanaya waxa eriic isbaa ku soo kordhaya eriyadii baa la isticmaalayaa dadkii way qaadanayaan afkaas marka uu koraya uu kobcaya isagoo shilis ayaa la isticmaalaya inaga afkeenu ma dhasho iminka uu sii dhintaa sax marka la uu sii dhintaa waxa weey ereyo badan oo aan la isticmaalin baa khadka ka baxaya oo lumaya hadii ereyada aan la isticmaalin waxay la mid tahay sanadkii afkaaga hadii ay ka lunto 20% baa ka sii lumaya markaan isticmaalin ereyada sax marka 20% sanadkii waa wax badan 5 sano 10 sano imisa sii lumaya 20 sano imisa sii lumaya 30 sano imka 30 sanadood ayaynu ahayn dad kala firdhaday oo kala yaacay oo aan dawlad dhexe oo quman lahayn qurba la galay dabeetana nin walba lahjad gooniyo iyo af gooniyo afkiisii dhex galay ayuu la yimid taasi waxay keenaysaa in ereyo badan oo af Soomaali la isticmaali jiray aan asmaray la isticmaalin maxaa ka mid ah ereyadaas ودعيدا واحدة وبدين لكن تساعد أن كوسا قاتو إمك دان أدي يغير كابا كو إلهادو وحا عنيga هيسا دلطبيو waxa laga yaabaa in dad badan yiraahdaan af Soomaali waaweyn buu ku hadlaya laakiin ma aha af Soomaali waaweyn waa afki caadiga ah sax daltabiyadu waa markaad u boholiyoobid wadankaaga hooyo xiise aad u xiisaysid boholiyoogu wadi heesaayo ku arkay marka daltabiyadu waxa weeye xanuunka aad dareemaysid markaad wadankaaga ka soo fogaatid iyo jacaylka aad u qabtid inaad wadankaaga iyo dadkaaga dib ugu noqotid eriga lama isticmaalin baa laga yaabaa adiga goorma ku dambeysay oo isticmaashid daltabiyo weliga ma isticmaal weliga ma maqal xitaa oo kaalmay markaa haddii aan ku yiraahdo tusaale gaaban ma soo qaadanaya hagardaamo oo dhibaato laakiin adigu hagardaamada goorma isticmaashaa may laakiin heesaan ku maqlay laakiin adigu ma isticmaashid may qof kula hadlayana kuma yiraahdo marka erigaas macnaheedu waxa uu lumay sawna haddaan ku yiraahdo heesaha ku raacaan ku yiraahdo dalanbaabi oo qof lunsan ama waa lunsanahay oo kale marka iyana ma isticmaashid asxaabtaaduna kulama isticmaasho eragaas haddaan ku yiraahdo dhur sugid asmaray waan ka dhur sugaya waxa laga yaabaa inaad igu tiraahid maxaad u jeedaa dhur sugid laakiin marna waa ka war sugaya weeye marna dhur sugid waa wanaag xumaanta kuma jirto xumaan baan ka sugaya maaha wanaag baan ka sugaya weeye waa jirta bas laba qof oo jacayl ka dhaxeeyo haddii qof kale ku yiraahdo waan ka dhur sugaya positive wanaag buu ayuu qofka ka filayaa marka iminka dhowrka ereyaan tusaale soo qaatay adiga iyo dad badan ma isticmaalin wuxuu la mid yahay 20ka boqolkiiba si lumaya ee afka Soomaaliga waxa jira ereyo carabka dadku khaldo oo afaf kale inooga yimid dabeetana aynu si kale u qaadano ama ereygi aynu bedelno waxa kamida aqli iskaxda عقلي dadku waxay u isticmaalaan badankooda aqli ee bay ka dhigaan aniga diil imanaysa aqli heesa badan xitaa ay ku jiraan baa jirta aqligaas laakiin kelmaddu waa carabi aqli bay ka timid waxa fiican kelmadda af kale aan ka soo qaadano siday tahay inaan u niraahno imika anu marka aan idaacadahan dhageysanayo xitaa marka qaar waxaan diidaa covid-19 marka Soomaalidu idaacadooda ka hadlayaan waxay yiraahdaan covid-19 marka gaalkii magacan u soo saaray covid-19 la baxay haddaad ku tiraahid covid-19 marka waa xanuun kale covid-19 maaha صح
marka direct translation markaad wixii toos u tarjumaysid iyana waxbaa ka lumaya ereygu siduu u soo baxay ayaa fiican loo yidhahdaa marka caqli ayaa ka mida aqli dadku yidhahdaan waxaa ka mida idaacada waxaad ka maqsaa musharax iyo murashax waa laba eroo isku dhow midna waa macallin wax sharaxa musharax midna waa murashax waa ninkaas soo sharaxay isagu ee doonaya inuu jago qabto marka waa loo idaacadda ka yidhaahda ninkani waa musharax waa macallin mana aha de macallin waa madaxweyne ordayaaba waa musharax maaha murashax baa sax murashax marka musharax waa sharax waxa way qofkii wax sharaxayay ee ardayda oo kale iskuulka wax barayay ereyada aan ka maqlo idaacadaha waxaa kaloo ka mid a waxaa dhacay maanta magaalada Kismaayo sixir barar aad u weyn sixirku waa sixir waad maqashin qofka waa la sixirayo sixir baa jira carabiga waa sixir baa la marka sixir barar ma aha waa sicir barar waa sicir afka carabiga waa ereyada ka soo qaadano carabta ereyada carabta ka soo qaadano waxa qayb ka iyaguna magacyada oo aynu khaladno aamino faadimo khadiijo sahro nuuro intaas oo dhaadaan ku waa khalad maxaad oranay waa yaab de magacyada caadiga ah u isticmaalayna dil yiraahdo waa qalad wax alla wax ka jira khadro iyo aamino iyo sahro iyo xaawo ma jirto sida ay erey magacan uu ku yimid ee carabida saxda waxa weeye xaawa khadiija aamina sahra sidaas oo kale iyo wixii lamid haddii ereyga ugu dambeeyo oo galo oo carabiya ereygan kale imkaan isticmaalnaa waxa weeyaan aamina baan xagga dambe ka isticmaal haddii la isticmaalo farta laatiinka Soomaalidu bay ka wada dhigtay daas markaa waxba kama jiraan tamacneedu waxa weeye markaa haddii aad khaladayba magacii waxa la baxday sidii COVID-19 COVID-19 magac kale ayaa la baxday magac kale dhiman baa la baxday dad badan baa isweydiiyay yiraahdaa asmaray waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya waxa af Soomaali sax ku hadla waqooyiga dad badan baa sida aaminsan ma fakarkaygana ma kaagana ma waa gartay laakiin se anu waxaan dhahdaa ereyo badan oo af Soomaaliya oo koonfurta laga isticmaalo ayaa ka saxsan ereyo badan oo laga isticmaalo waqooyiga kuwa badan oo waqooyiga laga isticmaalo ayaa ka saxsan kuwa koonfurta laga isticmaalo waa gartay tusaale ayaa mid walba ku siinaya markaa qaado ayaa jirta qaado waa taqaanaa qaado malgacad baa taqaanaa baashan cuntada lagu cuno qaada labadaba waa taqaanaa qaado waxa laga isticmaalaa koonfurta malgacad waxa laga isticmaalaa waqooyiga malgacad waa khalad koonfurta saxsan waa gartay malgacad horta waxa weeye afka carabiga ka timid waana kuwa carabka uu jijibiyey malgacad carabiga ma jirto laakiin waxa ka timid erey la yiraahdo malcaqa marka malcada iyo Soomaali inta badan xoogaa carabku ma isticmaalaan Soomaalidu malcaqa weeye marka waa malgacad bay ka soo qaadeen waayahay marka carabi bay ahayd kuwana Soomaali waa tii wax qaadaysay bariiskay qaadaysaa cuntada qaadaysaa soortay qaadaysaa qaado weeye waxaa jira weliga ma maqashay fandhaal waa qori sida qaadada u samaysan oo wax lagu cuno marka carabka Soomaali waxaan ka dhignay fan baa ku jirta fandhaal laakiin sidii original asalkiisu ku yimid waxa ahayd fardaan soo farax lagu cuni jiro imka de qori baa la samaystay xoogaa ballaaran sidii qaadadii oo lagu cunayo farti buu dhaamaa farti uu ka fiican yahay maanta marna la murdiska ma taqaana murdisku xeeradu markay dhamaato oo cuntada aad sii macaansatid inta yar ugu dambaysa ee subagii waa farta saa ugu soo qaadaysaa markaasaad leefaysa marka murdis baa la yidhaha waad ku murdiday farta inta badan wax lagu murdiyaa maaha taa maaha oo taa maaha waa taa iyada waxaa la yidhaha markaa murdiso tan waxaa la yidhaha faryaro ana waxaan aqaanaa murugsato horta bal tan maxaa taqaanaa faryare waaye fardhaxo may dhexdii minaa gaarin weli faryare faadumo fardhaxo haye murugsato maaha murugsato wataatan doonayda murdiso weeye waa tii murdinaysay iyo sulgumud marka murdisadu waa farta iyadana waa la yidhaha waa tii lagu murdiyay marka fandhaalkii ayaa wuxuu ahaa fardhaan marka imika carabkii markuu ku batay wuxuu noqday fandhaal
Fandhaal. sidii la doonayo loo isticmaalo waa geed qori laga soo qoray oo sidii qaadadii loo ekeysiiyey Sax. marka labada dhinacba koonfurta iyo waqooyigaba waxaa la odhan karayaa af Soomaali badan oo xaggan saaxiibaa jira af Soomaali badan oo xaggan saaxiibaa jira af Soomaali badan oo afka carabiga la falgalay baa jira waqooyiga u badan iyo kuwa afka kale ee Talyaaniga oo kale uu la falgalay oo ku jira afka Koonfur. koonfurta lahjadaha laga hadlo waxaan tegaynaa afka mayga Haye. Horta mayga ma taqaana Caliyo. maya Haye. laakiin waan fahmaa kuma hadlo waan si fahmaa baydhabana waan ka shaqeeyey Sax. marka annakaygan ku hadli jiray iyana mayga igula hadli jiray waan isfahmi jirin Waa gartay. afka maygu hal erey baan soo qaadan doonaa oo aad aan uga helo geela inagu aan geela u naqaano Ah. iyagu gaal ba u yaqaanaa Gaal. gaal Waa gartay. inaguna gaalka waxaan u naqaanaa ninka cad ee kristanka Sax. marka xoogaa confuse geelii aynu naqino oo gaal loogu yeedhayo ood xanaaqisa soo ma Waxaa leedahay diinta ka saara. ka gadaal baan ogaaday inay iyagu saxsan yihiin Sax. geelan inuu gaal ahaa magaciisu Oo la bedelay. oo markii dambe carabkii bedelo geel uu noqday dhinaca waqooyiga iyo gobolada dhexe waxaas oo dhan siduu ku noqday dheh Sax. Sidoo ku noqday. waqooyigii geel u yaqiinay ayaa waxa geela marka la lisayo waxaa la isticmaalaa hadhuub Sax. lagu liso hadhuubkaas waxaa la yidhaahdaa hadhuub gaal Harub gaal. hadhuub gaal waa geelii Sax. hadda waqooyiga oo dhan ma sheegaya marka hadhuub gaalkii hadhuubka waa haantaa yar baasha yar wax lagu shubayo caanaha lagu shubayo gaal baa raacsan gaalna waa geela waa hadhuubkii geela marka waqooyigu maxay u odhan waayeen iyo gobolada dhexe Soomaaliya hadhuub geel maxay u odhan waayeen Hadduu saxan yahay. hadduu saxsan yahay maxaa loo yidhi hadhuub gaal waxaa jirta beelaha Soomaalida ah inkastoo imika qabaal inaan ka sheekeyn laakiin magacu siduu ku baxay gaal jecel reer la yidhaahdo jirto Sax. marka gaalo cadaan ay jecel yihiin maaha macnaheedu Waa gartay. waxay jecel yihiin waa geel jecel Gaal jecel macnaheedu waa markii hadda afkeena u qaadnay hadda aan isticmaalno waa geel jecel. waa geel jecel Waa gartay. waa fahansama marka gaal ayaa saxa marka geela iyo gaalka laga hadlay labadaba Sax. afka Soomaaliga su'aashii warsaad weydiisay ma ku noqonaya marka Hay. xogaa ku daliyaan maanay May. waayahay afka Soomaaliga wadigi weydiiyey waxyaabaha uu kaga duwan yahay afafka kale Haye. waana inaga ku bilownay barnaamijkan hodannimada afka hooyo Waa gartay. inuu hodan yahay Sax. afka Ingiriisiga shalay maxaa lagu yidhahdaa yesterday shalay tii ka horreysay masalan daraad maxaa lagu yidhahdaa afka Ingiriisi Yesterday, day before. before yesterday Before yesterday, ha. sama maanta waa today berrina waa tomorrow maalinta ku xigtana waa after tomorrow waa maalin berri kadib Ha. Magac ma leh. magac ma leh Waa gartay. carabiduna sidoo kale Haye. ams waa shalay daraad male waxay ku odhanayaan awal ams waa shalay tii ka horreysay Waa gartay. carabidu bukra maanta berrito waa bukra wey bukra maalinta ka dambeysa bacda bukra buu ku odhanaya Waa sida English waa sida English oo kale Sax. inagu marka bal ila tir waxaan leenahay daraad Haye. shalay Haye. maanta Haye. berri Haye. saa dambe Haye. saakuun Haye. sida taal Haye. toddobadii maalmood buu dheeyay maalin walba waxaynu naqaanaa magac Magac gooniya. sida taal waxaa kaloo loo yaqaanaa bilaha ka mid a Sax. laakiin maalintaana waa la yidhaha saakuun maalinta ku xigta Na waa la yiraahdaa. waa la yidhaha Marka bishii iyo maalinta wax la yaabaa isku magac yihiin. inay isku magac yihiin Waa marka inagu afkeennii Soomaaliga wanaga toddobadii maalmood buu xula baxnay afka Sax. Ingiriisiga aan lahayn waa khatar carabiga aan lahayn waa khatar waa kuwa ku wareeray shalay tii ka horreysay daraad maalintii ku xigtay maalinta ka dambeysa Sax. afka Soomaaligu sidaas hodan u yahay laakiin dadkii isticmaalayay ee dhisayay ee afkii qaniinimadiisii iyo hodannimadiisii la imanayay baa maqan waa shacabka inagu aynu ka mid nahay Sax. ereyada waqooyiga iyo weli ay ku kala duwan yihiin koonfurta waxaa ka mid ah gabadh maxaad u taqaanaa haddaan ku idhaho gabar marka dhacdaydan baad la yaabanta baa laga yaabaa maxaad gabadh u leedahay intaa gabar iyo gabartii saxsan waxaad ku oranaysaa haddii gabadh waa hal markaan ku idhaho saddex ka dhig waxaad oranaysaa gabdho Ha. jamca ka dhig markaan ku idhaho group
gabar baad ugu tiri adigu markaan ku idha bal gabadha dhinaciina gabaraa tiri jamac ka dhig saddex ka dhig gabro ay noqonaysaa gabro odayga xabashigaa gabro iyo hawlihiisi baad laynkaas u gelaya markaa Right. marka gabadhaasaa sax noqonaysa marka laga eego sida ay jamac group u noqonayso afka soomaaligu wuxuu hodan ku yahay jidhka bini aadanka iminka jidhkeena oo dhan kulligooda af soomaali mid aynu carab ka soo qaadanay iyo mid indho af san madax sur qoor gacmo garab lugo bowdo haddii ilaa ku reey boqon cag jilib ruug mid walba magac gooni uu noo leeyahay mid wala magac gunu inuu leeyahay ilaa faro ilaa sacab marka eri aan meel kale ka soo qaado calacalna waa la dhahaa soo ma calaacal iyo sacab iyo calaashna wataa nina sacabadii nin walba sacabadiisu biyo kaga dhargaa waa calaacalihun baynu ka hadlaynaa Sax. weli xubnaha kuwana waxaynu idhahdaa xubno calaacalaha waxaan ujeedaa fartaa saddex xubnood bay ka koobantay Sax. xubno waa qaybtaas cudud baa jirta kub baa jira suxul baa jira waxaa jirtaa doqon mahaya Boqon. boqnaha waan garanayaa boqon eygii baa qof qaninoo wuxuu ka qaniinay Boqonta. boqonta seed baa jirta tahar baa jirta waxoo dhan waa wada af soomaali af meel nooga yimi maaha sax sanqaroor markaynu quruxda weliba special hablaha ka hadlayno san qaroor san yaroo dheeroo fiican baa laga hadlaya sanqaroor waxaan u maleynayaa waa halkaas oo yaro dheer xoogaa marka kamastuna marka halkaasi xoogaa yara diisan tahay sax garaariyo gacanta markay jilicsan tahay gacanta weliba hoos ah oo marka gabadhu Laabmayso. laafiyonayso waa xarakadii gacanta tahay garaariyuhuna waa halkaa ay ka laabmayso taa gartay af soomaaliga haddaan ku idhaahdo rays magaadho waxaa laga yaabaa inaad ama adiga qofaan ahayn inuu yidhahdo rays magaadhadu waa xaggee cagta inta hoose ee dhulka la dhigayo ee hoosta ah sida calaacasha gacanta oo kale ayaa rays magaadho la idhaha qofka rays magaadhadiisu ay sidaa u godan tahay waxaa la idhahdaa wuu dheereeyaa wuu dheerayaa wuu orod badan yahay wuu orod badan yahay qofka rays magaadhadiisu ay dhulka taabato waxaa la yidhaha orodkiisa ma badna marka rays magaadhan ujeednaa ujeedadu waa halkaa hoose waxaa jirta waa cagta meesheeda gudan meeshada hoose gudan ee dhulka la dhigo aan gaarinin dhulka qaarna dadka way gaadhaa qaarna way yar Diisan kacsantay tahay. yar Sax. diisantay waxaa jira dhabxanagu afka gudihiisa carabka korkiisa inta yar xuubka ah ee ilkaha sare hoostooda waxaa la yidhahdaa damxanig dhabxanag dalqadu waa halkaa afka ay wax ka gelayaan gudaha ku jirta marka inta sare kafarka sare waxaa la yidhaahdaa dhabxanag af soomaaliga aynu ka hadlaynaa wuu lumay sax lamana isticmaali doono waxa bedeli doono ereyo suuqdiya oo ay dhallinyadan dambe iyo jiilashan dambe ay la yimaadaan ayaa positionkii ama meeshii gelaya erey sax ku buuxin doonaan waxaan barnaamijkeena doonaya in aan ka hadlo oo aan kusoo gebagabayno oo aan sharaxo lacag waxay tahay lacag ma haysaa lacag baa laysiiyey lacag baa laysoo diray lacag buu qaatay lacag buu haystaa lacag buu ereygaa wada lacagtaa meeshuu ka yimi miyaad qiyaasi kartaa asmay lacag may ma qiyaasi kartid aniga haddaba sharaxo haye LA waa la sax iyo af soomaaliga a iyo e iyo jida maxaa la odhan jiray ga ga okay lacag marka waa la iyo cag marka la kala gooyo cagti waa maxay marka waa tii haddaanu ka hadlaynay cagtu waa inta cagtii hoose hoose waa inta hoose ma sax waaye si fiican baad intaa u garatay haddii wiil aada u iibinaysid kabo oo wiilkii kabihii aanu kula socon isagiyo aada qiyaastii garan weyd yarka cagtiisii inta la eg tahay berigii hore dee maynaa noqon waxaan imika naqaanay ah cagta sida loo qiyaaso kabtaada ood oranaysa kabta ilayga waa intaa berigii hore may jirin lugtun baad gelinaysaa hadday kula ekaato haddii ka weyn markaas qiyaasa sax marka kabti markaad yarkii usoo qaadid ayaad odhanaysaa yarkiina kulama socdo
anaa ku weydiin waxaan ku odhanayaa masalan wiilkaaga aad kabaha u iibinaysid weeye wuxuu lacag yahay wiilkayga haye waa lacag maxaan u jeedaa kelmadda lacag waxay ka timi wuxuu lacag yahay waan sharaxi doonaa meesha ka timi laakiin markaan imika kaba iibsanayno ood wiilkaaga kaba iibinaysa anaan wiilkayga kaba iibinayo aan kula socdo masalan haddaan ku idhaahdo wiilkaagu wuxuu lacag yahay wiilkayga magacii lacagta meeshaas ku jira horta waxay noqonaysaa cagta baan ku hadlaynaa kafta sinaan leekaansho way isla egyihiin wiilkaaga iyo wiilkaygu xagga cagta way isla way egyihiin isla egyihiin xagga gacanta maaha xagga afkana maaha xagga lugta ama cagta hoose way isla egyihiin صح marka qiyaas baan ku siiyay sama waad qiyaasi kartaa marka lacag waxa weey macnaheedu waa la mid waa gartay inta ma yahay sababta maanta barnaamijka wax badan baa aniga laftigeyga faa'iido ayuu faa'iiday hay beriga hor lacag ma jiro marka ninka wata neef waxa lagu bedelayaa kiish bariisa iyo mid sankora ay u goysaa ka soo qaad xilliga marka ninkii dukaanka raashinka hayay kiish bariisa iyo kiish sankora ayuu siinayaa ninkii reer miyiga ahaa neefkii buu ka qaadanaya kala bedelanayaan kala bedelanayaan laakiin naqd ama cash ma jirto marka lacag soo baxday ayaa la doonayaa dadka in laga dhaadhiciyo in warqadani $50 ay la mid tahay 2 neef oo ari ah waa gartay marka waxa la leeyahay warqadan waa lacagti imika weli lacag ma inaan bixin warqadani waxay lacag tahay 2 neef waxay la mid tahay 2 neef qofku wuxuu ku soo celinayaa ma lacag ba yes waa lacag sidii bay lacagta ugu baxay marka maadaama warqadani ay wax walba goynayso saliid baad ku iibsanaysaa ari baad ku iibsanaysaa raashin baad ku iibsanaysaa wax walba waa lacag waan gartay wixii baaqi kaaga soo noqonay iyo markii la xisaabtamo iyo lacagtu ay suuqa gasho taas waa gooni laakiin waa la mid weey macnaheedu صح intaan ma iga haysan aad iyo een af Soomaali marka asmar ilaa xadkaas inuu qaybo badan ku soo qaadan doona meesha la isla maraya hadda iyo meesha af Soomaaliga uu ka yimid sidoo ahaa asalkiisa iyo quruxdiisa iyo wanaagiisa iyadoo gabayo iyo maanso iyo suugaanta Soomaaliga la gaarin haddana kan lagu wada hadlayo ayaa wuxuu ahaa mid sarbeebtiisa leh mid anshaxiisa wata mid af Soomaaliga anshaxa imika marka social media aad daawatid ama dhalinyarada dambe soo kortay waxay moodayaan in sida social media loo hadlo in loo hadli jiray bariga hore صح gabadh buu faraxmeeyay gabadh buu kufsaday Google Drive buu sameeyay gabadh buu la galmooday uu u tagay intaas oo dhan kulli anshax bileen waan isku wada macne laakiin imika eriyo halkan aynaan ka oran karin ayaa la isticmaalayaa marka social media marka laga sheego marka af Soomaaliga hore uuna ka xishood badnaa kan waanu ka qanisanaa oo ka hodansanaa kan wuxuu kula ka hodansanaa afafkii aynu barbar dhignay ee Carabida iyo Ingiriisiga inta waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii hodannimada afka hooyo oo uu ila daadiinayay Cali Xaraare inta aan mid kan lamida ku kulmi doono waxaanu idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo